mid ka mid ah wareegyada kubadda cagta ee bisha Ramadaan kuwooda ugu xiisaha badan ayaa xalay ka bilaabmay garoonka roogga ee maxadka ee Burco. Tartan ciyaareedkan oo ahaa mid iska wax u qabsaa ay u soo abaabuleen dhalinyarada gobolka Togdheer oo hormuud ka yahay Ibrahim Saleebaan Hanuuniye. Waxaana loo qabtay koobkan kooxaha meheradaha iyo ganacsato gaar ah iyadoona munaasabadaas goobjoog ay ahaayeen isuduwaha ciyaaraha ee gobolka Togdheer iyo xildhibaan Cabdilaki oo bishu tahay 3 bisha Ramadaan waxa noo furmi doona tartanka horyaalka Ramadaanta oo dhalinyaro ahaan iska wax u qabso ay ugu soo abaabuleen dhalinyarada gobolka Togdheer la'aantiina ayna socon lahayn bareefadaha in la'aantii socon lahayn isuduwaha wasaaradda ciyaaraha oo gabi ahaanba tartankii garoonka weyn ay kubadda cagta geed dheer iyo geed gaanba u falay sidoo ugu soo celinaa sharaftiisa iyo haybadiisa muddo dheerna dhalinyaradu ka qeylinaysa in roog cagaaran loo soo dhigo guntiga wuxuu dhay soo celiyay garoonkiina maanta isagoo standard oo gobolada adduunka ama garoomada adduunka la midka ah aan maanta waxa inta naga muuqdeen isduu mar walba nala daba taagan yahay in uu nagala qayb qaato tartamada bareefadka ay ka dhacaya garoomada bareefadka bishan barakeysan Ramadaan waxa uu u ballan qaaday dhalinyarada gobolka Togdheer inuu ka qabtiri doono dhammaan agabka iyo koobka iyo jaysooyinka hadii ay ka dhigo tartankan isduwaha naga qaabilay Allah karaameeyo isduwaha wasaaradda ciyaaraha waxaan 1 iyo 2 iyo 3 ba ugu mahad celinayna shaqadiisa iyo mid dheeraad ah wuxuu dhalinyarada gobolka Togdheer ugu galaya sidii ballanka maalintii loo magacaabay xilka uu ku qaaday inuu sharaftii gobolka Togdheer soo celiyo oo maantana aad ka aragtaan indhihiina ku aragtaan dhalinyarada inta leeg uu kulmiyay 12 kooxood waxay u mahad celinayaan anaga ku hadlaya afkoodii oo qof nin dhalinyaro ah oo isboorti ah in isduwaha wiilii hoo nala garab taagan yahay xildhibaan Cabdilaki oo xildhibaanka dhalinyarada ugu jira golaha deegaanka ayaan u mahad celinayna isaguna hiiliyo hoo la garab taagan tartankan team kamid la dhaw xildhibaan Laki team anagu haddaan nahay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee gobolka Togdheer mar labaad iyo mar saddexaad waxaan soo celin doonaa dhalinyaradii gobolka Togdheer ku magacaawneed ee xulkii gobolka Togdheer hore waxaad u ogeydeen qaranka Soomaaliland inay 4 jeer ay imaadeen 2 jeer koobka qaadeen 2 jeer siifin ay imaadeen 2 jeer bay naga hoostay 2 jeer wax naga hoostay maamul xumo iyo dhalinyaradii oo tafaaruq ku dhacay laakiin maanta dhalinyarada gobolka Togdheer waa isku mid meel walba hiiliyo hooy isla garab taagan yihiin waana samaacadeedii sharaftoodina in gobolka Togdheer soo celiyaan bay doonayaan anaguna haddaan hay isduwaha iyo maamulka gobolka Togdheer waxaanu diyaar u nahay inaanu samaacadii sharaftii kor u qaad doono horena uu socon doono haddii Ilaahay ka dhigo furitaankii koobka Ramadaan garoonka maxadka ka qayb galayaan 12 kooxood oo 3 group ah marka fariintan halkan ka diraya waxa weeye 12 kooxood waxa lagu jiraa bishii barakeysnayd Ramadaanta bishii cibaadada ma aha inaad kubad isku nacdaan ama isku xagaagtaan waxa loo baahan yahay inaad si sharaf leh karaamo leh sidii ahaan jirtay inaad u ciyaartaan aydan dambina ka kororsan qof walba tiimka 12 kooxood mid walba waxa laga doonayaa xirfadeeda kubadeena soo bandhigto 12 kooxood ayaa ku tartamaya wareegani lagu dhiirigelinayo dhalinyarada ciyaaraha gobolka Togdheer waxaana ciyaaruhu u muuqdaan hadda kuwa soo fiicnaanaya wareeg ciyaareedkani habeenkan caawa laga furay garoonka maxadka ee magaalada Burco waa mid sare lagu qaadayo dardarta ciyaaraha ee gobolka Togdheer Sakariya Ilyas Jakarta Burco.